بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu maanta haddii eebbaha uu dala idmo dhigan doonaa oo baran doonaa waxa loo bixiyey ciwaanka halkaas sare ku yaala oo ah qaybaha suugaanta ama sidaynu ciwaanka ku sheegnay qaybaha afka iyo suugaanta. dadku badanka waxa jira ereyo lagu khalkhalo ama weedho lagu khalkhalo qofku marka uu wax isleeyahay cabir oo wax sheeg markuu isleeyahay. tusaale ahaan nin baa meel ka hadlaya, markuu hadlaabaad kala garan waayeysaa waxani waa maxay. hadalkiisa aad u qurux badan, tusaale ahaan hadalkiisa qaafiyad iyo weedho qurux badan buu leeyahay. waxaad kala garan waayeysaa waxani ma hadal buu ahaa, ma gabay buu ahaa, ma buraanbur buu ahaa, wuxuu ahaa. qof baa meel ka heesaya, waxaad kala garanaysaa waxaan u tiri waar matix bay ahayd, ma maansay ahayd, ma hawraar bay ahayd, ma suugaan bay ahayd. wariyayaashu dawlad markay badanka hal abuurka wareysanayaan waxay ku yidhaahdaan maxaad noo sidaa, waxaan idiin sidaa maansa. waxaa la yidhahda ma hees baa mise waa gabay, ma maansa. waxaad arkaysaa wariyayaashii ku khalkhalaya waxaanaad tirinaysaa waxa ay yihiin. ceebna ma aha. marka waxaan idiin sheegayaa maanta oo aan isku dayaynaa inaynu baranno si yaroo kooban, hoosta geli mayno, qaybintooda xooggaa geli mayno, waxay ku kala duwan yihiin dhawaaq ahaan iyo qoraal ahaan geli mayno. laakiin waxaanu si yaroo kooban u sheegaynaa kala duwanaanta iyo marka shay waxa lagu kala sheegayo iyo sida ay u kala qaybsamaan, si aad u hesho sawirka guud ee afka ama sawirka guud ee suugaanta. waayahay, qaybaha suugaanta ama qaybaha afka iyo suugaanta. suugaan marar badan baad maqasheen iyada oo laleeyahay suugaan baa la marinayaabaa maqasheen. ereyga suugaan halka uu kasoo jeedo marka hore iyo sida iminka loo adeegsadaa isku mid iyo isku cayn maaha. suugaan waxaa la yidhaahdaa waagii hore la odhan jiray magaranaysaay gabayadii horena uu ugu jiray marka tusaale ahaan meel uu roob ka da-o, meel kayna oo jiqa oo dhir badan leh baa uu roob ka da-ay. roobku markuu sidaa u qaado ee caleentu qoyan tahay, ee caleentu dhibic leedahay, ee weli ay sii urayso, ay sii magaranaysaa ay carfayso, saxansaxadii ay sii carfayso iyo udgoonkii carradu markuu biyo ay ku dhacaan waxay samaysaa udgoon bay samaysaa. markaasaa la yidhahdaa waa meel suugaan leh. ya waa meel qoyaan iyo cagaar la odhan jiray, waa meel suugaan leh baa la odhan jiray. ereyga suugaan markaa bilowgiisii hore sidaasuu ahaa, laakiin imika waxaa loo adeegsadaa gabayada iyo sawmaha. sababta loogu adeegsadana waynu sheegi doonaa. waayahay, haddaba intaynaan suugaanta marka hore u tegin, meel iska dhig suugaanta, iska ilow suugaanta. caadiyan wax kasta oo afka bini-aadanka ka soo baxa, wax kasta oo afka ka soo baxa waxaa loo kala qaybiyaa hadal iyo hadaaq baa loo kala qaybiyaa. mararka qaar culimada af soomaaliga waxay ku daraan hugun bay ku daraan, hadal, hadaaq iyo hugun bay ku daraan mararka qaar. laakiin inagu si kooban hadal iyo hadaaq baynu kala qaadanaynaa. hadalku waa maxay? hadalku waa kanaan imika kugula hadlayo, waa hadal caadiya, waad ifahmaysaa, qaafiyad male, waxba male, waa hadal caadiya. hadal weeyaan caadiya ood fahmayso. wixii haddii aad fahmayso oo uu macna ka hadlayo oo uu wax kuu sheegayo hadal baa la yidhaahdaa. ama ha qornaado, ama maqal qura ha ahaado raadiyo aad ka dhegaysatid, ama muuqaal ha ahaado oo muuqbaahiye aad ka dhegaysatide, hadal waa hadaluun. hadaaqu waa maxay markaa? hadaaq waxaa la yidhahdaa badanka weedhaha aan macnaha samaynayn ama dhawaaqa aan macnaha samaynayn. tusaale ahaan ilmo yaroo hal jira ama ilmo yaroo laba jira baa hadal buu is odhanaya, ma hadlo ilmuhu wuu hadaaqaa, daabone wuu hadaaqayaa qofku. hadal maaha, weedho maaha, ereye maaha, xarfo maaha, waa codad aan macna samaynayn. hadaaq baa la yidhaahdaa. dabadeed waata la yidhaahdo carruurtu ma hadlaane waa hadaaqaan baa la yidhahdaa, hadaaq baa la yidhahdaa. hugunkuna waa ka duwan yahayo waa guuxa weeyaan. hugunku qofku markuu guux sameeyo ayaa la yidhaahdaa hugun baa. tusaale ahaan haddaad igu tiraado yaxya waxaa miyaad ogoshahay, haddaan saa ku dhahdo waan hugmayaa, ma hadlayo mana hadaaqayo, laakiin waan hugmayaa. waayahay, marka hadal iyo hadaaq iyo hugun baynu u kala qaybsanay soo maha. hadalkaan doonayaa markaa inaan sii dhex galo, waayo hadalkaa 100 qaybood u kala qaybsamaa. hadalku wuxuu u kala qaybsamaa labadan u kala qaybsamaa. waa tix iyo tiraab.
tix waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo leh habdhac iyo xarafraac ayaa tix loo yaqaanaa. shaygaasi hadduu leeyahay habdhac israacaya si hadduu u wada dhacayo la 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 imika waa god weeyaan, isku sibuu u dhacayaa, isku sibuu u dhacayaa, waa isku god baa la yidhaahdaa. marka hadduu xarafraacna leeyahay, marka xarafraac waa maxay? waa sa buu ku socdaa ama cayn buu ku socdaa ama kaaf buu ku socdaa, waxbuu ku socdaa. xarafraac buu leeyahay wax kasta oo leh hanaan godeed ama hanaan habdhac iyo xarafraac wax kasta oo leh baa tix la yidhaahdaa. haddaba halkaa markay taagan tahay tix qura looma yaqaano magacyo kalena waa la yidhaahdaa. mararka qaar halkaa markay taagan tahay waxaa loo yaqaanaa maansaa loo yaqaanaa. maanso waxaan filayaa inaad arkayso maansaa mararka qaar loo yaqaanaa. maanso waxaad arkaysaa dabadeed buuggan waxaa lagu kaydiyey maansadii abwaan hebel hebel baa lagu odhanayaa. maanso maxaa laga wadaa? tixdii baa laga wadaa. buuggan waxaa lagu kaydiyey maanso waa meel sare, maanso kuwan hoose maaha, maanso waa meel sare. wax kasta oo habdhac iyo leh xarafraac baa loo yaqaanaa maanso. buuggani waa maansadii hebel hebel. wax kasta ood adigu garan weydo oo gabay kuula ekaada, hees kuula ekaada, guurow kuula ekaada, maanso waad ku sheegi karaysaa. waayo maanso waa meel sare, god ma sheegto, habdhac ma sheegto, waa meel sare. laakiin kuwan hoosaa sheegi doona, laakiin maanso waa meel sare, waa laisku wada qaadaa. marka haddaad tiraahdo yaxyow maansooyinkaagii mid nooga soo qabo ama abwaan maansooyinkaagii mid nooga soo qabo, waad saxsan tahay. laakiin haddii aad tiraahdo halkaa waxaa ku jira imika, haddii aad tiraahdo yaxyow maansooyinkaagii mid nooga soo qabo ama aad tiraahdo yaxyow ma garanaysaaye gabayadaadii mid nooga soo qabo, hadda taa way kala duwan yihiin. gabayada abwaankaasi waxaa laga yaabaa inay 5 xabba yihiin, laakiin maanso waxaanoo dhan baa la yidhahdaa. maanso waa laan sare weeyaan, waa laan sare oo ka tirsan tixda weeyaan. way magac labaadna way yeelan kartaa. halkaa waxaa loo yaqaanaa ereyga kale ee la simani waxa weeyaan hawraar. hawraar hawraar iyaduna waxa weeyaan hadal iyo hawraar baa mararka qaar la yidhaahdaa. hadalka waxay u dhigantaa tan oo kale u dhigantaa tix iyo tiraab, soo ma aragtid? hadal iyo hawraar bay u dhigantaa mararka qaar. oo hawraartu waxay la macno tahay iyaduna waa laan sare oo waxay joogtaa heerka ama mustawaha tixday joogtaa. markaa tix iyo hawraar iyo maanso waa isku macno dhow yihiin oo kama hadlaan god keliya iyo qayb keliya kama hadlaane waxay ka wada hadlaan dhammaan inta aynu hoos ku sheegi doono oo dhan. inta waad ila fahanteen baan filayaa, soo maaha? culimada af Soomaaligu markay wax dhigayaan way kala aragti duwanaadaan, kala sibay wax u qaybiyaan. sidan aan anigu soo qaatay waxa laga yaabaa inay si tahay, laakiin qaabab kale inaad adiguna haysaa laga yaabaa, ama aad akhriday qoraa kale iyo suugaan yahano kale iyo suugaan daadiye kale oo si kale wax u akhriyaya. laakiin intaan anigu khibradda u lahaa, sidani waa qaabka loo kala qaybiyo af Soomaaliga iyo dhammaanba suugaanta. halkaynu waxaynu maraynay tixdu maansana waa noqon kartaa, waa lagu sheegi karaa, hawraarna waa lagu sheegi karaa. saddexdaa ereyba inaad maqashaa laga yaabaa, raadiyaha aad ka maqasho adoo buug akhriyaya aad ku aragtaa suuragala. waayahay, hadalkii waynu sheegnay soo maaha, hadaaqiina waynu sheegnay, tix baynu nidhi, tiraabtiina haddaba aynu sheegno. tiraabtu waa maxay? tiraabtu waxa weeyaan wax kasta oo ka soo hadha tixda ama maansada ama hawraarta, wax kasta oo ka hadhaa tiraab la yidhaahdaa. tiraabtu waxay ta kale kaga duwan tahay oo labadan lagu kala soocayaa waxa weeyaan tani habdhac male, godna male, xarafraacna male. waa imika waxaan anigu sheegayaa waa tiraab. tiraabta maxaa ka mid a markaa? khudbadaha ka mid a. haddaan kuu khudbadeeyo, madaxweynuhu markuu khudbadaynayo wuu hadlayaa marka hore. ha hadle ma tix baa mise waa tiraab? waa tiraab. khudbadaha ka mid a markaa. khudbadaha ka mid a maxay kalaa ka mid a? waxaa kaloo ka mid a
sheekooyinka haddaan kuu sheekaynayo ma tix baa mise waa tiraab dee soo maha sheekooyinkaa ka mid a haddaan kuu sheekaynayo iyaduna waa tiraab waxaan ka wada iyaduna waa tiraab sheekooyinka iyaguna ka mid a soo hadday lama socotid khudbadaha iyo sheekooyinka labaduba tiraab bay xisaabsan yihiin oo waxa weeyaan waxaan qaafiyad iyo lahayn allahuma salli calaa sayidina maxamed ay habdhac waayahay haddaba tixdaa aan usii galo tixdaasaan usii gelayaa tixdu qaybo waaweyn bay leedahay waxay ka kooban tahay ilaa dhowr iyo 10 qaybood bay ka kooban tahay iyadoo hadba la eego deegaanka uu qofku joogo iyo waxa la adeegsado ayaa hadba la eega tixdu waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegnay waa qaybta habdhaca iyo qaafiyada leh waxa ugu horeeya gabayga in badan baad maqashay gabay aad buu caan u noqday gabaygu waxa laga yaabaa marar badan xataa qaar heeso iyo jiiftooyin ah baa gabay lagu sheegaa haddaad tidhaahdo waxa uu hebel akhriyay gabay buu ahaa adiguna aanad suugaanta garanayn ma fiicna gabay ha ku sheegin haddii aanad garanayn labada tix ku sheeg maansa ku sheeg hawraar ku sheeg waayo intani kuwan kale oo dhan bay noqon karaan laakiin gabaygu waa god ka mid ah godadka maansada ama waa god ka mid ah godadka tixaha gabay ha ku sheegin tix ku sheeg maansa ku sheeg hawraar ku sheeg abwaanku wuxuu inoo akhriyay tix iska dheh ma garanaysaa abwaanku wuxuu inoo akhriyay maanso abwaanku inoo akhriyay hawraar iska dheh laakiin gabay ha ku sheegin waayo gabaygu haddii waxaa la dareemayaa inaanad garanayn baa la dareemayaa gabaygu waxaa la dhahdaa waa boqorka maansada weeyaan ama boqorka hawraarta sababta loo yidhi waa dhowrsi sababta koobaad waxa weeyaan gabaygu waa godkii la isticmaali jiray ama la adeegsan jiray intii aan dowladnimada iyo xadaaradda Soomaalidu helin waa ta koobaad oo waxa weeyaan suugaanteena qaybta ugu baaxadda weyn leh bay ahaan jirtay iminka way isbedeshay laakiin waagi hore waxay ahaan jirtay suugaanta qaybta ugu baaxadda weyn leh waa ta koobaad ta labaad ee uu gabaygu boqorka suugaanta ku noqday waxa weeyaan ragga baa tirin jiray waagi hore ragga baa tirin jiray oo dumarku may tirin jirin dumarku kuwan hoose soo socday tirin jireen rag baa tirin jiray marka waxa loo yaqaanay inuu yahay godka ragga inuu yahay baa loo yaqaanayo waa lagu dagaalami jiray colaadaha lagu geli jiray mararka qaar waa lagu caytami jiray waa lagu faani jiray waa god wuxuu ahaa raggu isticmaalaan waa ta labaad ta saddexaad waxa weeyaan dhammaan kuwa hoose oo dhan uu ka wada dheer yahay beydkiisu wuu ka dheer yahay kuwa kale waxa uu eeg yahay gabayada carbeed buu aad ugu eeg yahay oo waa ka dheer yahay waxa uu yeeshaa hooris iyo hoojis buu leeyahay qayb hore iyo qayb dambe buu leeyahay garasow anaa kula hadlaya gacalkayow heedhe beydkiisu intaasuu leegyahay halka kuwa kale ay ka gaagaaban yihiin marka ta saddexaad ee lagu ciseeyaa waxa weeyaan beydadkiisa dhaadheer beydadkiisu hadday dhaadheer yihiinna waa uu ka adag yahay samayntiisa oo waxa gala ilaa 19 ilaa 21 shaqal baa gala shaqal aan ka wado xarfaha codadka sameeya af Soomaaliga marka maxaynu niri suugaantii hore uu ka yimi laba rag ay adeegsan jiray saddex waa uu ka shaqal dheer yahay oo waa uu ka beedad dheer yahay taasa ka dhigtay gabayga wax la ciseeyo gabayadii caanka ahaa waxa kamid ah silsiladihii guba oo ahayd silsilado la isku weydaarsaday reer isku dagaaleen ayaa caan ahaa inta la soo galay dawladnimada iyo ay yimaadeen xadaaraddu ay timi gabayadii caanka ahaa kuwii maxamed ibraahim mursam hadraawi waa kamid ahaa kuwii sayd maxamed cabdalla xasan baa kamid ahaa allahumma salli ala sayyid gabayo badan kuwii cabdiidaan baa kamid ahaa iyo rag kaloo badan oo laga yaabo inaan imanka hilbaansanahay baa kamid ahaa kolka gabaygu waa godka boqorka ah gudaha u sii gali mayno hadii gudaha u sii gallo waxay ku kala duwan yihiin shaqo la'aan ka gayoon mayno caawiye bari kolka guud ahaan baan doonayaa inaad maskaxda ku haysato gabaygu inuu ka yahay inuu tixda hoos yimaado inaanad wax kasta gabay ku sheegin haddii aanad garanayn oo aanad hubin inuu gabay yahay haddii aanad hubin godkaasi godka uu yahay tix iskaga sheeg maanse iskaga sheeg hawraar iskaga sheeg waay waxa ku soo xiga geeraarka isagana in badan baa maqasheen geeraarku waxa uu ka mid yahay
gabaygu kusoo xigaa mustawa ahaan gabaygu kusoo xigaa geeraarka waxaa la odhan jiray waagii hore raggu ama wuu gebyi jiray ama wuu geeraari jiray labadaa mid aan ahayn raggu ma tirin jirin waagii hore marka ama gabay buu ninku tirin jiray ama geeraar markuu weliba doonayo wax dhabka ah inuu tiriyo gabaygu isticmaali jiray laakiin markuu ardaaga iska fadhiyo ee uu ka hadlayo arrin aan macno badan lahayn badiyaa waa geeraari jiray oo gabay iyo geeraar buu raggu ahaa waagii hore iminkase way isbedeshay geeraarku marka wuxuu ka mid yahay wuxuu kusoo darajo xigaa gabaygu kusoo darajo xigaa dabcan wuu ka gaagaaban yahay samays ahaan beydkiisu waa ka gaaban yahay isaga ilaa 4 shaqal ilaa 5 shaqal bay isdheer yihiin waxaa la yidhaahdaa geeraarku waa nus ka mida gabayga waxaa la yidhahdaa waa hoojiska hore ee gabayga loo yaqaana waa inta hore ayay isku shaqal leeyihiin cilmiga marka la dhiganayo miisaanka maansada ayaa taas aad loogu faaqidaa laakiin waan idin xasuusinayaa waxaa la yidhahdaa geeraarka oo lagu daray jiiftaa gabayga keenta xisaab ahaan marka la isu geynayo geeraarku marka waa inta hore ee gabayga loo yaqaana taasina waa taa geeraaradii caanka ahaa maxaa ka mid ah geeraar maxaad xasuusataa bal hadda geeraarada xasuusatay isoo sheeg anigu imika labaan maskaxda ku hayaa labaan aad u jecelahay waxaa ka mid ah geeraarkii Faarax Nuur rag sabaan ka sabaan baan sasabaad ku dayaa hadduu seexani waayo sariir baan u dhigaayoon seexa idhaahda hadduu saakimi waayo seedow mood iyo salaantaan badiyaa gabaygii uu ka sheekeynayay naftiisa iyo qaabada uu la dhaqmo Faarax Nuur nin la odhan jiray baa sameeyey wareergiisa ahaa waxaa isaguna ku jiray gabaygii caanka ahaa ee Timcadde markii calanka la saarayay aan sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegee ka nasiib ka nasaar isaguna geeraar buu ahaa Timcadde lahaa الله يرحم Timcadde geeraaradiisu aad bay qurux badnaayeen allahumma salli ala geeraaro badan oo kala iyaguna jiray geeraaro salaan carabi lahaaba isaguna jiray oo talow culka jooja ayaa isaguna jiray geeraaro badan baa jiray adiguna waad noogu soo dari karaysaa geeraarada xasuusato way godka ku xigaa waa godka loo yaqaan heelada hello markii haddaba la soo galay markii dawladnimada aynu keensanay ee uu kamanku inoo yimi kamanku cadan buu inooga yimi waxaa isbedelay dhammaan godadkii laga maansoon jiray baa isbedelay godadkii gabayga iyo geeraarka ahaaba waxay isu bedeleen imanka heelo iyo waxay isu bedeleen heeso iyo jiiftooyin bay isu bedeleen heelooyinkii ugu horreeyay heeladu waxay la socotay kamankay la socotay dabadeed heeladu waxa lagu yaqaanay waxay lahayd qaab yar oo fudud si yar oo fudud baa loo sameyn jiray way ka samays fudud tahay geeraarka iyo gabayga labadaba heelooyinkii ugu badnaa dabadeed waxaad ku arkaysaa iyagoo jacayl lagaga hadlayo waxaa laga yaabaa gabay iyo geeraaradii ugu badnaa inaad aragto iyagoo colaad iyo dagaal iyo reero faanaya aad ku aragto heelooyinka ugu badanna waxaa laga yaabaa inaad ku aragto jacayl iyo wadaniyad baad ku arkaysaa waayo waa intii ay dawladnimadu inoo timi labadan kale laakiin way ka horreeyeen heelooyinkii caanka ahaa waxaa ka mid ah heestii calankayagu waa cirkoo kale ayaa ka mid ahayd qolaba calankeedu waa cayna inaga keenu waa cirkoo kale waa ka mid ahayd heelooyinkii cabdilaahi qarshe waxaa ka mid ahayd heestii odhan jirtay nin daar ku jira daruur ma arkay ilayn xalay roobku u daayay baa ka mid ahayd heelooyin badan oo qurux badan baa jirtay oo la sameeyey kamankay la socdeen oo markiiba waxa la saaray laxamaa la saaro waa la qaadi jiray iyaga halka kuwan kale aan la qaadi jirine luuq la saari jiray luuq gaaraa la saari jiray gabayga iyo geeraarkaba waxaa kusoo xigta markaa iyaduna heesta oo imanka bad noqotay bad 60kii sano u dambeysay godka loogu samaynta badan yahay waa heesta weeyaan sabab kale ma aha heestu way ka tira badan tahay heestu gabaygu waa god qura imanka geeraarku waa god qura heeladu waa god qura heestu laakiin waxay leedahay intaas oo kun oo god bay leedahay godka mooyahay leedahay godka haantay leedahay godka koolkoolintay leedahay ma garanaysaa godkii maroodi bay leedahay godad badan bay leedahay taasi waxay keentaa inuu qofba mid ka heeso aan dabadeed la isdareemin anigoo godka maroodi cadhoole ka heesaya hadduu nin kale godkii koolkoolintay ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul hadduu godkaa ka heeso qofku waxa la moodaya inaan laba heesooda kala duwan samaynayno laakiin labaduba heesun bay soo hoosgelayaan heesihii baa laakiin godad kala duwan leh heesaha samayntoodii hore haweenkaa lahaa oo haweenku marka ay haanta culayaan iyo magaranaysaa marka ay tulayaan
iyo marka ma garanaysaa ay mooyaha tumayaan iyo marka ay meydhaxda diiranayaan intaba heesay qaadi jireen. heesihii ay qaadi jireen baa godadkoogii la isticmaalayaa. godadkoogii baa la isticmaalayaa, laakiin waxaa la bedelayaa macnihii iyo mucdii uu ku socday. iyada oo siyaasad laga hadlayo baa laga yaaba haddana godkii koolkoolinta in laga hadlo. iyada oo siyaasad laga hadlayo baa godkii haweenku meydhaxda ku diiran jireen laga hadlayaa, ama godkii habluhu cawska ku toli jireen. waayahay, heestaana waynu isla garanay. heestu waa qaybta ugu weyn imaka intii dowladnimada la helay kamankuna yimi. heestu waxay ka mid tahay suugaanyahan kasta ama abwaan kasta iminka heestu u badan yahay. mid mooyaan dadka badankooga heesahay u badan yihiin, way ka gaagaaban yihiin. dadkuna sidii hore ma aha iminka oo aada uma ciseeyaan gabayga, markaa heesaha aada loo sameeyaa. waxay ku kala duwan yihiin uma jirto iminka, dadkan dhegtooda uma kala duwana gabayga iyo heestu waa isugu miduun. heestaana waynu isla garanay, waa godka caynkaasa ee ballaadhan ee aadka iminka loo sameeyo. isaga heesta gudaheedaa godad badanna siile. waxaa kusoo xigi kara godka loo yaqaan saarka. saarku isaguna wuxuu ka mid yahay godadka suugaanta. waa godadka deegaamada gaarka la isticmaalo. waxaa laga isticmaalaa gobolada dhexaa loo isticmaalaa ee soomaalida ayaa laga isticmaalaa. allahuma salli. saararkii caanka ahaa waxaa kamid a ninkii carays ciise la odhan jiray hooyadu waa lama huraan. ma garanaysaa heestii odhan jirtay saarka ahayd ee carays ciise ayaa aada caan uga dhigtay godkan. laakiin saarar ka horeeyay waa jireen, haweenkunbuu kana gaar u ahaan jiray waagii hore. waxaa iminka meeshu ii qaadi weyday oo iyaduna dee ciiddaa ka badan intan in leeg baa jirta. waxaa jira buraanburkii baa jira. buraanburkii baa jira oo haweenku ay aada u isticmaalaan, oo sitaadka iyo ay ku tuman jireen, nebi ammaanka iyo ay ku tuman jireen. buraanburka ay imanka haweenku marka fijaanada iyo arooskii la jooga ay qaadaan waa buraanbur. waxaa ku jira guurowgii oo iyadana gobolada dhexe laga adeegsado. waxaa ku jira shiribkii oo laga adeegsado intaa banaadir iyo muqdisho aada looga adeegsado. shiribkii baa isaguna ku jira. mid guux la yidhahdaa jirta. guux mid la yidhahdaa jirta. marka waxaa jira ilaa dee anigu inta aan garanayo in leeg oo aanan garanayn baa jirta oo deegaamada laga adeegsado. dhaantadii baa jirta oo halkan laga isticmaalo aagan jigjiga iyo dhagax buur aada looga isticmaalo. heellada iyo dhaantadu aad bay isugu eegyihiin. dhaantadu waa heellada oo 2 shaqal ama 3 shaqal lagu daray baa la yidhahdaa. waa heellada oo yeedhma leh baa la yidhahdaa. dhaantadii baa iyaduna jirta oo aagan dhagax buur iyo aada looga yaqaano. iyaduna saylicigabaa mararka qaar god lagu sheegaa oo aagan laga isticmaalo intaa awdal aada looga adeegsado. marka waxaa jira godad ciiddaa ka badan inta la yaqaano iyo inta qofku aanu garanayni ay isleeg yihiin badanka. ilaa iminka 9 baynu sheegnay. waxaa laga yaabaa 9 kalena inay jiraan oo aanay weli soo shaac bixin. laakiin inta iminka khadadka iyo shaashadaha iyo buugta gashay baa intan u badan. insha allahu tacaala waxaan yar eegi doonaa intaanan soo xidhin barnaamijkeenan aan hal mar yar eego faallooyinkiina wixii su-aala. heelooyinka aad cabdimalow baan ilaabay heelooyinkiisii iyo haco. maxay ahayd ilaah ballankii barqaan kacay heestii cabdimalow ka mid ahayd. carays ciise kaarshehaad nacam ulanta waa loo helo buraanbur kabeebay sirow. rag badan baa iigu soo darayaa godad aanan hore u maqal. godadkan waxaa laga yaabaa inay jiraan laakiin koonfurta ay u badan yihiin. godad baa imanka uu ii sheegayaa nin la yidhaahdo kabeebay iyo sirow godad weeyaan baan filayaa. waa sida shiribka oo kale aan filayaa haddii aanan qaldanayn. waxaa laga isticmaalaa gobolada koonfurta. hilwo waa run. daantada iyo hilwaduna aad bay isugu eegyihiin. wax godad oo kale ilaa 9 baynu iminka carabownay. deegaanka badanka laga isticmaalay ku xidhan tahay iyo dadkaasi waxay adeegsadaan. dadkan xoola dhaqatada ah oo dhami badanka gabay iyo geeraar bay u badan yihiin. badankoogu gabay iyo geeraar bay u badan yihiin. kasakow ciyaaraha dhaqameedka. dadka ciyaaraha dhaqameedka iyo waxay aada u sameeyaan dhaantada iyo bay aada ugu badan yihiin iyo sayliciga. gobolada koonfurta oo kale oo dabcan la iiga aqoon badan yahay aniga shiribkaan ka garanayaa, saarkaan garanayaa. hilwada oo kale iyadu waa halkan dhagax buur baan filayaa aagaa waxa weeyaan jigjiga.
marka faallooyinkeedu kusoo qori doontaan qof kasta godka uu garanayo godadkan aan ka sheegayaa qaarkood waa ciyaaro, qaarkood waxaa loogu talagalay in afka laga akhriyo. imka gabayga oo kale luuq buu leeyahay, isaga laguma ciyaaro, waa lagu luuqeeyaa, isaga iyo geeraarkaba waa lagu luuqeeyaa. qaarkood waa ciyaaro, qaarkood waa hees hawleedyo oo waxaa loo adeegsadaa marka goor gaara ayaa la adeegsadaa, oo marka dee geel la aroorinayo ama geel la waraabinayo oo kale heesa gaara weeyaan. sidii aynu soo sheegnay, haweenku marka ay cawska tolayaan iyo marka meedhaxda diiranayaan waa hawl qabanayaan. marka god kastaa sibuu ku yimi, cid baana isticmaali jirta oo taariikh buu leeyahay, deegaanna buu leeyahay. taasaa ka dhigaysa wax qurux badan, afkeena hodantinimadiisana way muujinaysaa. waxaynu isku dari doonaa insha allah inta aynu hayno, waxaynu kasoo diyaarin doonaa cashar dhammaystiran oo godadka tira koobaya haddii eebaha awoodda la idmo. aad iyo aad baa umahadsan tihiin. waa inoo xalqadan iyo magaranaysaa ta xigta ama casharka xiga haddii eebaha awoodda la idmo. aad baa umahadsan tihiin.